hadda ciidanka ii jooga waa ciidan kooban. markaan xafiiskaaga soo galaynay agagaarkiisa oo dhan ciidan xoog laa jooga. dadka qaarkii waxay yidhahdaan Shariif waa nin hubaysan, marka is-hortaagaas aad ka hadlayso ma mid ciidan ba? waxaan u malaynaa aniga hadda ciidanka ii jooga waa ciidan kooban oo u jooga maxay ahaato maadaama dalkan uusan amni ahayn, amni ahaan ila shaqaynaya. waxaadna ogtahay hadda aniga ciidan ku handaday maba jirtaba, waana kasoo horjeeda aniga ciidan in laysu adeegsado. waxaan jecelahay wada hadal iyo isfaham in wax lagu dhameeyo. waxaa la socota aniga iyadoo xabad igu socoto oo lay xabadayna inaan dhahay ciidankayga xabada ridina, oo haddana sidaas ay u dhacday. dagaaladii madaxweynahan ka horreeyay lagula jiray oo looga hadlayay modelka doorashooyinka, qofka ugu adag oo inaan xoog la adeegsan ka hadlayaan ahay. waa wada ogyihiin siyaasiyiin, dadka Soomaalida wada ogyihiin. sidaasoo kale ciidamadii markay soo galeen, qofka mowqifka ugu adag ka qaatay inay ciidamadu baxaan marka ra-iisul wasaaruhu oo ogolaaday arrintii ayaan ku jiray. marka aniga dhinacayga waxaan aaminsanahay inaan wixii habboonaa in la qabto, ama dhihid ha noqoto ama mowqif siyaasi ha noqoto inaan qaatay aan aaminsanahay. ciidankaas xagee ka keentay? kharashka ku baxas ayaa bixiya? ciidanka oo hadda aniga gurigeyga jooga waa ciidan kooban, ma aha ciidan badan. ciidan kharashkiisa la bixi waayo ma aha. qayb badan oo kamid a waxay ka qoran yihiin madaxtooyada, waa la ogyahay, diiwaanay leeyihiin, dowladda bixisa. ciidanka dowladda ka mid yihiin, madaxtooyada ka tirsan yihiin. hadda ma ahe waxay joogaan xilliga farmaajo joogeen, madaxweyne farmaajo hadda waa joogaan. madaxweyne 2012 ayaad xafiiska ka tagtay Sebtembar. intaa doorashooyin ayaa soo dhacayay. dadku marka xilligan oo kale la soo gaaro aad bay u walaacaan, waliba dadkan dee aad ogtahay Muqdisho degane culaysyada ugu badan ay ku dhacayeen 30kii sane ee la soo dhaafay. ka oday ahaan adiga xasan kalama fogeediin, waad ogtahay inta jeeraad saaxiibada ahaydeen oo isu dhaweydeen inaad xafiiska ku kala wareegteen. talada iyo didiilada aad dadkaas u hayso oo ay ku degi karaan maxay tahay? talada ay ku degi karaan waxaa waa inaysan dowladnimadu qaloocan, waddo qaloocan inaysan aadin. waxaa jira wax maanta kuulweli kara, laakiin haddaadan qaban berrito dhibaato way keeni kara. haddii dadka Soomaalida ay ku kala tagaan doorashooyinkan, dowladnimada Soomaalida waxaa gaaraya dhaawac weyn. sida hadda madaxda joogta ay wax u wadaanna waxay u egtahay inaysan waxba xeerinaynin. marka inaan isku dayno inaan istaajino khaladaadka jira oo dowladnimada oo keenaya ummaddu inay kala irdhowdo. waxaad ogtihiin dhowr iyo 30 sano waxaan ku wareegaynaa maxaa la yidhaahdaa